habeen wanaagsan kuna soo dhawaada telefishinka BBC Soomaali qodobada wararkeena caawa ugu waaweyn waxa kamid ah dalka Itoobiya waxa ka dhacay isbedel weyn waxa la doortay hogaamiye cusub oo ka soo jeeda qowmiyadda Oromada warbixin ayaynu idinkaga haynaa nukleerka Kuuriyada Waqooyina Kim Jong Un waxa uu sheegay madaxweynaha Shiinaana uu sheegay inuu diyaar u yahay wada xaajood balse waxa jira shuruudo waxay ahaayeen maxaabiis laakiin hadda waa jaamiciyiin waxayna warbixin idinkaga haynaa xabsi ku yaala Uganda oo fursad maxaabiista loo siiyay inay wax bartaan siyaasi weyn oo ka soo jeeda qowmiyadda Oromada iyo wasiirkii hore Abiy Ahmed Cali ayaa loo doortay hogaamiyaha xisbiga talada haya ee EPRDF wuxuu noqonayaa ra'iisul wasaaraha marka baarlamaanku ansixiyo doorashadiisana waxay imaanaysaa iyadoo dhowr toddobaad ay wada xaajood adag dhex maraysay afarta xisbi ee ku buhoobay EPRDF bal cidda ay ku bedeli lahaayeen Xili Maryam Disalaan Cabdiraxmaan Bidhaan ayaa noo faahfaahinaya waa markii TV-ga dowladda Itoobiya shaaca ka qaaday in loo doortay Dr. Abiy Ahmed inuu noqdo hogaamiyaha isbahaysiga xukunka haya isagoo sidaasina ku noqonaya ra'iisul wasaaraha waxa uu ku guuleystay in ka badan 60% cod sir ah oo la qaaday iyada oo ilaa saqdi dhexe hawshaasi lagu jiray iminkana waxa uu xaadan dariiqaasi uu xilka ugala wareego Haile Mariam Desalegn oo bishii hore xilka si lama filaanay isaga casilay qaybo kala duwan oo dalkan ah ayaa dadku soo dhaweeyeen caleemasaarka Dr. Abiy oo ka soo jeeda qowmiyadda ugu badan dalka ee Oromada dadka siyaasadda ka faalooda ayaa u arka doorashadan mid lagu dejinayo dadkii bannaan baxayay taasi oo saamaysay 4 gobol oo dalkan ka mid ah dibadbaxayaasha ayaa soo socday ilaa 2015 iyagoo dalbanaya isbedel xagga dimuqraadiyadda ah iyo mid dhaqaale dalka ayaa markii labaad ku jira xukunka degdega ah the short run at least he will definitely face wakhtiga dhow waxaa soo wajihi doona caqabado badan sababtoo ah dhibaatada aynu aragnay waa kuwa ay ahaayeen in si tartiib ah wax looga qabto laakiin hadda waxaa haysta kuwan ka soo baxaya xisbiga dhexdiisa waxaa jira dad doonaya in xaalku sidiisa ahaado waxaa jira dad ku barakacay gobollada qaar marka wakhti ayay u baahan tahay waxaan rajaynayaa inuu isbeddel la taaban karo samayn doono baarlamaanka ayaa iminka laga filayaa inuu maalmaha soo socda kulmo si isugu raaco doorashada Dr. Abiy isagoo xilkan hayn doona 2 sano ee soo socda inta dalku doorasho ka galayo haddaba faahfaahin ku saabsan hogaamiyahan cusub iyo waxa uu yahay waxa wax ka weydiiyay oo la socday wariyaha BBC-da Cabdirasaaq Xaaji Catoosh Abiy Ahmed waxa uu ka soo jeedaa qowmiyadda Oromada waa 42 jir waxa uu wax ku bartay magaalada Addis Ababa dalka dibadiisana shahaadooyin ayuu ka soo qaatay waa sarkaal darajada ciidanka ka gaaray Cornell waxa uu ka soo shaqeeyay wasaaradda gaashaandhigga isagoo sidoo kalena shaqooyin kala duwan ka soo qabtay dalka Rwanda oo uu ka tirsanaa ciidankii nabad ilaalinta Itoobiya sidoo kale waxa uu qayb ka ahaa dagaalkii Eritrea iyo Itoobiya ku dhaxmaray xuduudda Badama ninkan shaqooyin fara badan baa horyaala waxyaabaha ugu waaweyn waxa kamid ah ee laga filan karo inuu dejiyo xiisadaha dalkaasi ka taagnaa waxa la og yahay in dalka xaalad degdeg ah uu ku jiro qabiilka uu ka dhashay ee Oromadana ay ka mid yihiin dadka aadka u kacsan marka arrimaha ugu waaweyn ee hadda guud ahaan dadka iyo dalkaba ay ka fili karaan Dr. Abiy Ahmed waxa weeyaan in xaaladda dalka uu ku jiro uu si u dhaamo waxa kale aad isu weydiinaya sida uu uga madax bannaan yahay militariga oo lagu tiriyo inay dalkaasi aad u xukumaan iyo waliba kalsoonida lagu qabi karo inuu ka duwanaado ra'iisul wasaarihii hore ee dalka ee iscasilay Haile Maryam Desalegn faahfaahin dheeraad ku saabsan warbixintan iyo kuwa kaleba waxaad ka heli kartaa bogga BBC adigoo mobilkaaga ka galaya Shiinaha ayaa sheegay in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un oo booqasho qarsoodi ah ku yimid wadankooda uu u sheegay in ay ka go'an tahay in nukleerka laga dhigo Kuuriya wuxuu la kulmay madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping taas oo ahayd booqashadii ugu horeysay ee la ogaaday uu dibadda uga baxo Kim Jong Un ilaa markii uu xukunka qabtay 7 sano ka hor
farxaan maxamed jimcaale ayaa ka warramaya. tani waa qaybtii ugu dambaysay ee safar kolonyo daahsoon oo caasimadda Beijing lagu arkay, waxayna gaadiidkani ku sii socdeen iyagoo aad loo ilaalinayo xarunta tareenka. hadda waa la og yahay wafdigaasi waxay ahaayeen waa Kim Jong Un, waana la ogaaday wixii dhacay oo ahaa wadahadalladii qarsoonaa. xaasaskooda ayaa sidoo kale meesha joogay oo kulanka foolka ah ka muuqday. hoggaamiyaha Shiinaha ayaa halkan ka muuqda iyo walaalkiisa ka yar Kim Jong Un. Kim Jong waxa loo sameeyey maamuus soo dhowayn ah. inta badan waxaa la arki jiray in marka uu Kim Jong Un khudbaynayo in qolyo kale ay wax u qoraan, balse hadda isaga ayaa wax qoranaya. Shiinaha waa dalka keliya ee garabka u ah Kuuriyada Waqooyi, balse isgarabsigaasi wuxuu mugdi galay markii Kuuriyada Waqooyi ay bilowday qorshaheeda nuclearka. kulankani ayaa adduunka iyo Donald Trump u sheegaya in labada dal saaxiibeen. Shiinaha oo keliya ayaa siin kara ammaan gaar ah haddii ay Shiinuhu ka dhaadhicin karaan. waa in inta kalena siiyaan ammaan caynkaas ah. kadibna way fiican tahay haddii uu aaminsan yahay baabi'inta nuclearka, waa inuu sameeyaa kana dhaadhiciyaa Shiinaha inay dhinac istaagaan. Kim Jong Un waxa uu ku celceliyey inuu dhimayo hubka nuclearka, inkasta oo taasi aysan caddayn oo aanay ahayn wax cusub. aqalka cad ayaa sheegay in Shiinaha uu fariin gudbiyey kulanka kadib, waxaana jirta arrin iska cad oo ah in Shiinaha uu doonayo inuu xudun u noqdo wadahadallada nuclearka ee soo socda. bal markana aynu eegno qodobo kale oo ku jira wararka maanta. dugtii ugu horreysay ayaa loo sameeyey dadkii ku dhintay xarunta dukaamada Komarevo oo ay ku dhinteen 40 carruur ah iyo dad waaweyn oo 20 ka badan. maalin baroordiiqa ayaa Ruushka laga dhigay. calaamada xarumaha dawladdan hoos ayaa loo dhigay iyadoo xildhibaanada dalkuna ay daqiiqada u aamuseen. waa maalintii saddexaad ee ugu dambaysay codaynta doorashada madaxweynaha Masar, taasoo la filayo in mar labaad 4 sano la doorto madaxweyne Cabdulfataax al-Siisi. mas'uuliyiinta ayaa dadka ku adkaynaya inay codkoodu dhiibtaan maadaama tirada codka bixiso oo keliya ay saamayn ku yeelan karto natiijada. guddiga doorashada Masar ayaa ku hanjabay in la ganaaxayo kuwa aan codkoodu dhiiban. kumanaan ruux ayaa dibadbax ka dhigay magaalada caasimadda Accra, kuwaasi oo ka horjeeda xiriirka difaaca la ballaariyey ee kala dhexeeya Maraykanka. waa arrin aan badi dhicin in laga hor yimaado joogista militariga shisheeye galbeedka Afrika. magaalada ganacsiga Accra ee Ghana waxaa ka buuxsamay dibadbaxayaal si taboorar lagu dhaliilayo heshiiska lala galay Washington, waxayna rumaysan yihiin in tani ay khatar ku tahay qarannimada Ghana. qaybo badan oo Afrika ah ayaa laga aaminsan yahay sixirka, inkastoo caddan yar laga hayo sida dhaqankaasi sax u yahay. dadka lagu eedeeyo inay saxiran yihiin, gaar ahaan haweenka, waxay bulshadooda ku ciqaabaan in ay xeryo ku go'doomiyaan. Ghana waxay dawladda 2 sano ka hor ku dhawaaqday in dhaqankaasi yahay sharci darro. Qaalib Xasan Baaruud ayaa ka warramaya. dadka Ghana diintooda aad ayay u caabudaan, haddana waxay aaminsan yihiin in sixirku yahay wax jira. dhaqankani ma aha mid iyaga u gaar ah. dad badan oo diimo kala duwan haysta ayaa aaminsan inuu sixirku yahay wax jira. dhibaatooyinka la soo darsana waxay badanaaba u aaneeyaan fala loo qabtay. qofkii Ghana lagu tuhumo sixiroole, qoyskoodu way dayriyaan, bulshaduna way takoortaa. waqooyiga Ghana waxaa laga dhisay xerooyin si xukun la'aana sannado loogu hayo dad lagu tuhumay sixir. xerooyinkan qaar ayaa ku dhow tuulooyin ay ku yaalliin qabriyo la siyaarto. waxaa laygu eedeeyey in aan cunug dilay. maalintaas tuulada oo dhan ayaa igu soo xuuntay. wax walba oo aan lahaa ayay burburiyeen. waan ganacsan jiray, laakiin haddan waxaan ku tiirsanahay mirahan si aan u noolaado. tuulada Koko waxaa ku nool 100 haween oo eedaysan. intooda badan haweenkani waxay xerada kula jiraan carruurtoodii iyo carruurtii ay dhaleen, ubadkaasoo aan helin waxbarasho. Mambow Saliim waxay xeradan ku noolayd 20 sannadood. maantana xigtadeedu waxay ku sancaynayaan qabri la siyaarto. waa naloo diiday inaannu muuqaalla ka duubno, laakiin 5 daqiiqadood kadib
waxaa naloo sheegay in la cuudiyey. Sangtaab waxa uu u doodaa xuquuqda aadanaha, waxa uuna haweenkan ka caawiyaa sidii ay mar labaad ugu dhex noolaan lahaayeen bulshada degaanka. si dadkan qoysaskoodii dib laysugu soo celiyo waa arrin aad u adag. waxaa kaloo jirta in dumarka la ciqaabayna ay sii badanayaan. dabcan waa tiro aad u badan, marka annagana wixii yaraa aynu halkan ku haynay culays badan ayayna saaraysaa. Sangtaab waxa uu ku guulaystay in Mambow Saliim uu qoyskeedii dib ugu celiyo, laakiin way adag tahay in haweenka intooda badan ay dib ula midoobaan qoysaskoodii. sidaa daraaddeed muddo dheer ayay qaadanaysaa in la xidho xerooyinkan. markana wararka ciyaaraha ugu waaweyn, Spain ayaa 6-1 kaga adkaatay Argentina ciyaaraha saaxiibtinimo. Lionel Messi dhaawac ayuu ku maqnaa, halka ciyaartooyga dhexda ka dheelay Spain Isco uu dhaliyay 3 gool. dhinaca kalena Jarmalka ayaa markii ugu horeysay laga badiyay 23 ciyaar. Brazil ayaa 1-0 ku tuntay. Talyaaniga iyo Englandna barbaro 1-1 ah ayay ku dhamaatay ciyaartoodii. dalka Uganda mashruuc muhiim ah ayaa u ogolaanaya dadka maxaabiista ah inay shahaado jaamacadeed ku diyaariyaan xabsiga. xaflad ka dhacday xabsiga Luzira ee magaalada Kampala ayaa 3 qof oo maxaabiis ah waxay shahaado dhinaca sharciga ah la qaateen jaamacadda London ee UK. mid ka mid ah wuxuu horey ugu xukunaa dil. natiijada mashruuca oo aad loogu bogay ayaa hadda siyaasiyiin iyo garsoorayaashuba isweydiinayaan in Uganda ay iska joojiso xukunka dilka ah. Sohayba Maxamed Badqas ayaa ka waramaysa. dhowr sano ka hor Susan Kigula may rumaysanayn inay maanta noolaanayso. dil baa lagu xukumay oo waxa ay xabsiga ku jirtay 17 sano. maanta in ay xabsigii ka baxday waxa u dheer in ay qaadatay shahaado jaamacadeed oo sharciga ah. waxa ay ka mid ahayd 3 arday ee ugu horeysay ee ku dhex qalin jabiyay xabsiga ugu weyn dalka Uganda ee Luzira oo ay wax ku baranayeen. maxaabiista waa bani aadam, qalad ayay geli karaan sida dadka kaleba, dib ayayna ka noqon karaan dad wanaagsan. waxaan rabaa in dadka ay ogaadaan inaan u baahnayn ciqaabta dilka ee dalkeenna. haddii la idaldali lahaa halkan ma joogi lahayn, sheekadaydana idinlama wadaagi lahayn. ku-xigeenka xaakimka ugu sarreeya dalka Uganda oo ku faraxsan guusha dadka qalin jabiyey ayaa aaminsan in isbeddel dheeraad ah loo baahan yahay. xitaa adigoo ah sarkaal dhanka garsoorka waxaad isweydiinaysaa in gebi ahaanba xukunka dilka uu ku sii jiro bugaagteenna sharciga. Pascal Kakuru isna waxa uu ka mid yahay dadka xafladan loo qabtay ee qalin jabiyey, walow uu weli maxbuus yahay uuna ku xukuman yahay dil. waxaa la filayaa in la sii daayo sanadka soo socda. sida Susan oo kale waxa uu qorshaysan in uu ku dadaalo olole dadka ay si fudud ugu heli karaan cadaalad. waxaa taageeraya barnaamijka maxaabiista ee Afrika. waxaa caqabadaha ka mid ah qaabka ay bulshada u soo dhaweyso ragga laga soo daayay xabsiyada. waa rag bedelay fikirkooda oo noqday kuwo waxtar leh, isla markaana diiradda saaraya waxa muhiimka u ah oo aan wakhti dambe lumi rabin. waxay doonayaan inay horumariyaan ajendayaasha dalka ayna ka dhigaan meel wanaagsan. xabsiga waa meel aan laga filan karin inay ka soo baxaan sharci yaqaano, laakiin waxa suuragal ah in aan aragno dad kale oo gaaray waxbarasho heer jaamacadeed ah in ay ka soo baxaan 5,000 ee maxbuus iyo dheeraadka ku jira xabsiyada Uganda. ugu dambayntiina xanaanaynta waayeelka haddii dad loo waayo, robot ayaa u jooga. dadka da'da ay ku nool guryaha waayeelada lagu xanaaneeyo Tokyo ayaa ka qayb galaya fasallo jimicsi ah oo robotyo ay samaynayaan. waxay la dhaqaaqayaan oo ay raacayaan muusiga robotyadaasi iyagoo kor u qaadaya gacmahooda. dadka laabta ayay ku qaban karaan, wayna la hadli karaan. 20 robot ayaana caawinaya waayeelada ilaa 2013 taas oo ku timid shaqaalaha oo la waayey. warkan iyo kuwii ugu dambeeyayba waxaad kala socon kartaan oo aad ka helaysaan boggeenna bbcsomali.com. intaasaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna caawa. waad ku mahadsantihiin daawashadiinna. inta aan kulmi doonno habeen dambe waxaan idinkaga tegaynaa nabad gelyo.